بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأبو بكر محمد يلحو إن شاء الله تعالى وحين وذني أو هاف إنه مريي إنه كشغيني ساينس كفصل كسديدات سنة كلاود من العطنية لبدا laba qaybood aynu soo sharaxnay waxaa inoo haray laba qayb oo kale. labada qayb aynu soo sharaxnay hore waxay aheeday qayb markaa aheeday goobagelis iyo qaybta labaad oo aheeday su-aalo markaa isku beegid ama isku aadina. qaybtan saddexaad ayaa waxay noqon doontaa haddii alla idmahayo qayb markaa meelaha bannaan la buuxinaya, yani meel baa lagu siinayaa, lagu banaynayaa, balse nasiib wanaag waxaa lagu siinayaa ereygii ama ereyadii meelaha lagu buuxin lahaa ayaa lagu sheegayaa. ereyadaas waxaa la doonayaa inaad kasoo dhex baxsato, dabadeedna ereyga saxda ahi aad ku buuxiso halkii loogu talagalay saxda ah. waaye marka horta erayadan lasiiye halkaas ay ka muuqdaan. erayadan lasiiye waxaa kamid a cunno, oxygen. aan tartiib ugusii sheego, waa cunno, oxygen, cimilo gooreed, anopheles, roobaadka, tiro atom, tamartu, kariirad iyo fogaanta xudunta baaris. intaasoo erey ayaa la doonayaa inaan ku buuxino 31 su-aasha ka bilaabanaysa ilaa su-aalahaas oo ku dhamaanaya 40 su-aalood. haddaba su-aasha ugu horeysa 31aad ereyga halkaa ka maqan waxaa la yiri waa xaalada gibilka ama jawi ee ay meeli leedahay muddo gaaban. haddaan si saxa u abaarno waxay noqonaysaa cimilo gooreed. adna waxaan rajeynayaa sidaas oo kale inaad iila fahamtay oo aad diyaar garowday oo aad jeceshahay inaad imtixaanka aad ku gudubto oo aad ku baasto insha allahu tacaala. sidaas awgeed halkaa ayaan waxaan gashan doonaa ama aynu ku buuxin doonaa ereyga aan ku magacawnay cimilo gooreed. soo marka halkaas waxaan ku qoraynaa cimilo gooreed. marka cimilo gooreed waa xaalada gibilka ama jawi ee ay mali leedahay muddo gaaban. su-aasha waxa weeye ereyga halkaa ka maqan waxaa lagu yiri waa awoodda howl lagu qabto. waa awoodda howl lagu qabto. haddaan si toos u abaarno taas waxay noqon doontaa ereygaasi waa tamarta. ujeedaa marka halkaa waxaan gelinaynaa tamarta. waxaan leenahay tamartu ayaa qorane tamartu dhe. marka tamartu waa awoodda ama kartida howl lagu qabto wey. su-aasha 33aad ereyga halkaa ka maqan waxaa lagu yiri wuxuu kamid yahay mashiinada fududeeya hawsha. ereygaasi waa kariirad. halkaa ma arkaysaan kariirad. kariiradiinu soo qaadaynaa halkaasinu gelinaynaa ya kariirad. waaya su-aasha 34aad waxa weye cudurka duumada waxaa gudbisa kaneecada nooca dhedig ee loo yaqaano, adba waa taqaanay maad sheegtid maxaa loo yaqaanaa anopheles. anopheles away ereyga waa ka anopheles. ma jeedido halkaas marka waxaan gelinaynaa anopheles ya anopheles. waxaa ku xiga su-aasha 35aad. su-aasha 35aad waxay leedahay labada faa'iido ee ay xayawaanadu ka helaan dhirta waxaa kamid ah. yani markaan xayawaanada faa'iido hela iyo ka helaan dhirta, labadaas faa'iido waxaa kamid ah midda koowaad waxay ka helaan maxay cunto ayay ka helaan. soo halkaas marku jeedaan cunno ayay ka helaan. midda labaadna waxay ka helaan oxygen. haddaba halkaas waxaan gelinaynaa midda koowaad oo ah cunno, halkaasna waxaan gelinaynaa midda labaad oo ah oxygen. su-aasha xigta ee 36aad waxa weeye xooluhu waxay aad u tarmaan wax soo saarkooduna uu badan yahay xilligehe. xilliga jiilaalka miya, xilliga abaarta miya, xilliga roobaadka miya? roobaadka weeye. halkaa eeg halkaa maxaa arkaysaan roobaadka. mujeedido so marka halkaas waxaan gelinaynaa xilli roobaadka ayaanu leenaha roobaadka. waaya su-aasha 37aad cilmiga sayniska waxaa lagu helaa kama iyo waxa halkaa ka maqan si loo
kama iyo halkaas ka maqan loo sameeyo si hagaagsan soo marka ereygaasi waa baaris halka midkaan ereygaas maxaa weeye baarisaan soo qaadaynaa halkaasaan dhigaynaa kama iyo baaris waaya su-aasha 38 waxa weeye ereyga halkaa ka maqan waa tirada borotoonada ee ku jirta bu'da curiyaha taadaba su-aashaas ama ereygaas wuxuu noqon doonaa tiro atom marka maxaan soo qaadaynaa tiro atom aynu soo qaadaynaa marka waxaan leenahay halkaas waxaan gelinaynaa maxay tiro atom su-aasha ugu dambaysa oo afartanaad weeye qaybtan su-aasha ugu dambaysa waxaa la yidhi mitirku waa halbeeg lagu cabiro maxaa lagu cabiraa marka fogaanta mid baan ka boday sorry 39 baan ka boday madheerta iyo ilmaha waxaa isku xidha maxaa isku xidha marka xudunta ayaa isku xirta maxaa isku xidha xudunta ilmaha uurku jirka iyo madheerta waxa isku xidhaahay waa xudunta saas awgeed maxaan gelinaynaa xudunta aynu gelinaynaa waaya su-aasha ugu dambaysa marka waxa weeye mitirku waa halbeeg lagu cabiro fogaanta halbeegeedu waa mitir iska fiiriya fahmaysan riyahay fogaanta halbeegeedu mitir weeye waxaan ku yiraahdaa xooga waxaa lagu halbeegaa newton hawsha la qabtay waxaa lagu halbeegaa joule waxyaabahaas ka hoos bixinay iska fiiri qaybtaas marka halkaas aan ku dhaafayna waxaan gudbaynaa qaybta xigta qaybta afraad waa su'aalo toos ah waxa la yiri waa 20 dhibcood baa saaran iyagana ku buuxi meelaha ka maqan shaxanka magaca ama sumadda curiyaha dhinacana sumadda curiyaha yani halkan waxaan la siiyay aluminium ama aluminium sumadiisu ama sumad ahaan markii loo qoro waxaa loo qorayaa L baa loo qorayaa aluminium maxaa loo soo gaabinayaa sumad ahaan L halkan sumadii baa lagu siiyay magaca curiyaha laga rabaa F baa lagu siiyay F ama F taas waxaa loo soo gaabinayaa ama yani F waa element ama curiyaha la soo gaabiyay way waxa laga soo gaabiyay ereygan ama curiyahan ah fluorine ya saasan u qorina Soomaali ahaan fluorine hadaba dhinaca waxaa lagu siiyay magaca curiyaha magnesium ayaa lagu siiyay waxaa laga rabaa sumad ahaan maxaa loo qorayaa magnesium sumad ahaan waxaa loo qorayaa Mg ama M iyo G ma iyo G dhinacana waxaa lagu siiyay sumadii curiyaha waxaa laga rabaa magaca curiyaha Li baa lagu siiyay Li waxaa loo soo gaabiyaa lithium ayaa loo soo gaabinaya marka waxaan u gudbaynaa qaybta su'aasha 42 ayaan u gudbaynaa su'aashan 42 waxa weeye sawirjaan tuseedkoose wuxuu tusinayaa qaab dhismeedka bedka birlabta waa sawirka markaysan sawirkan wuxuu tusinayaa qaab dhismeedka bedka birlabta haddaba su'aasha marka waxa lagu yiri halkee ayuu ku badan yahay xooga birlabtu waxa uu ku badan yahay cirifka xooga birlabtu waxa uu ku badan yahay cirifka waqooyi maxay waqooyi ayuu ku badan yahay su'aashan waxay qabtaa waxa lagu yiri xariijimaha birlabtu waxay ka soo bilowdaan cirifka sida caadiga cirifka waxay ka soo bilowdaan waqooyi waxayna ku soo dhamaadaan cirifka koonfureed si arkaysa ma jeedido hadaan ku sii tuso halkaas inta waxa laga soo gaabiyay north waqooyi way falaarta markay halkaas saa uga soo socotaa waa halka u sii jeeda tana waa halka u soo jeeda halkaas ay ku go'day tana waa halka u soo jeeda soo marka cirifka ka soo biltaana waa dhinaca kala danka u calamadino marka cirifka waxay ka soo bilaabaan waqooyi waxayna ku soo dhamaanaan cirifka koonfureed hadaba marka waxaan leenahay waxa lagu yiri xariijimaha birlabtu waxay ka soo bilowdaan cirifka waqooyi ayaa leedahay ya cirifka waqooyi waxayna u soo jeedsadaan cirifka koonfureed cirifka maxay koonfureed
su-aashaan in la fahmaan rajeynaya insha allah bilabta ku saabsaneed. su-aasha xigta ee 43 waxa weeye haddii Faysal qaado dhagax cufkiisu yahay 16 kilogram dhigana meel u jirta halkuu ka qaaday 4 mitir soo saar waxa isku dhaweeyo shaqada uu qabtay Faysal adigoo u qaadanaya ga inay la eg tahay 10 mitir per second laba jibaar. haddaba waxaan leenahay cufku meeqa weeye halkaan ku shaqeynaynayaa. waxaan leenahay cufku waa imis cufku waxa weeye 16 kilogram saas awgeed cufka waxaa loo soo gaabinayaa sumadan m mass baa lagu soo gaabiyey waxaan haynaa 16 kilogram. sidoo kale waxaan la sii fogaantaas oo dhererkeedu uu yahay inta uu qaado weeye dhagaxa waa 4 mitir. sidoo kale waxaan la siiyey in xarafkani gravitation kama karafjiidkan uu leeyahay 10 mitir per second laba jibaaran. waxaan loo dirana waxa weeye hawsha la qabtay weeye. ma fahamtay sida caadiga hawsha la qabto firsiya hawsha la qabto waxa lagu helaa fogaan lagu dhiftay xoog. hadda xoog ya ka maqan markii xoog lagu siin waqtiga marka xoogan soo saaranayna si marka xoogan ku soo saarana waxaan leenahay xooga waxa lagu helaa mass oo ah cufkii oo lagu dhiftay g oo ah karafjiidka majiid. mass marka waxaan haysanay 16 kilogram waxaan ku dhifanaynaa g oo ah 10 mitir per second laba jibaaran. waxaa ku soo baxaya marka 16 ku dhif maqawi 160 soma waa 160 kilogram mitir per second square na waxaa loo qorayaa newton. saas awgeed xoogii waxaad haysataa 160 newton. haddaba waxaa leedahay hawsha la qabtay maxay tahay hawsha la qabtay waxa weeye waa fogaanta la dhaqaajiyay walaxda oo lagu dhiftay xooga lagu qabtay. haddaba fogaanta meeqay ahayd 4 mitir bay ahayd 4 mitir waxaad ku dhifanaysaa 160 newton oo ah xooga loo adeegsaday soma soo marka 4 ku dhifo 160 aan isku dhifana bal marka 4 lagu dhiftay 160 maxaa soo baxaya 640. saas awgeed waxaan leenahay waa 640 halbeegina waa joule buu halbeeg. waad fahamtaa rajeynayaa. su-aasha waxaan gudbaynaa xigta waa su-aasha 44 waxa la yiri si geedku cuno u samaysto photosynthesis-ka waxaa laga marmaan ah in uu helo horta photosynthesis-ku waa habka ama hanaanka geedku uu samaysto cuntadiisa. waa photosynthesis-ka markaas si u dhaco waxaa loo baahan yahay baataja afartaas baa loo baahan yahay. afartaas maxay koow waxaa loo baahan yahay oo laga marmaan ah biyo. ta waxaa loo baahan yahay oo laga marmaan ah waxa la yiraahdo neeftan loo yaqaano carbon laba oxide. saana waa loo qorayaa carbon laba oxide. waxaa kaloo loo baahan yahay in la helo ilayska qoraxda ama ilays daartaya maxaa dhigi kartaa doonto ilays hadii kale maxaa dhigi kartaa ilayska qoraxda. waxaa kaloo loo baahan yahay in la helo maadada loo yaqaano cagaarisada. maadada maxay cagaarisada ayaa ina loo baahan yahay. afartaas loo baahan yahay si photosynthesis uu dhaco waxaa loo baahan yahay biyo 2 carbon laba oxide 3 ilayska qoraxda 4 maxaa loo baahan yahay maadada cagaarisada. waxaan gudbaynaa su-aasha xigta ee ah waxa weeye 45 waxa weeye tamartu waa ay badan tahay. haddaba shaankan hoose ku buuxi nooc tamareedka ay leeyihiin walxahan soo socda 4 dhibcood baa la saaray. falaar la ganay falaartaas miyay jiftaa miyay taagan tahay miyay socotaa miyay way socotaa. sidaas awgeed falaar la ganay dhinacan fiir waxa lagu sii tamar socod la'aan fiir halkan waxa ku qoraysaa wixii tamar socda halkan waxa ku qoraysaa wixii tamar kaydsan ah. haddaba falaar la ganay falaartu way socotaa markii la gano. sidaas awgeed maxaa leenahay halkan waxaan ku qoraynaa falaar haye la ganay macnaha waa tamar socod waayno tamarteedu waa tamar socod. cuntada tamarteedu waa tamar kaydsan. cuntada halkaas aad dhigaysaa marka cuntada tamarteedu maxaa weeye waa tamar kaydsan. diyaarad wahada ama hawada duulaysa waa diyaarad hawada duulaysa tamarteedu waa tamar socod.
marka halkan maxaan gelinaynaa diyaarad, maxaan leenahay diyaarad maxay hawada hawada haye dhamaystiro marka wada duulaysa na fahmi kartaa rajeynaya. kan ugu dambeeya waxa weeye birlabta tamarteedu waa tamar keedsan. halkan waxaan dhigaynaa birlabta way su'aasha xigta ayaynu u gudbi doonaa haddii way dhammaad weeye waxba kama dambeeya. marka qaybtan waa qaybtii ugu dambeysay ka shaqaynta aynu ka shaqaynaynay imtixaankii agaasinka waxbarashada uu qaaday maadada xisaabta maadada sayniska sanadku markuu ahaa maxay 2022. hadda maadada xisaabtana waan sharaxay oo ku jirta iyadoo dhameystiran 2 qaybood ayayna ka kooban tahay. marka inta ayaan kusoo gabagabeynaa insha Allah tacaala. waxaa inoo xigi doona haddii alla idmahayo maadooyinka kale iyo imtixaanadii kale ee la gala sanadadii kale ee kala duwanaa. inta ayaan kusoo gabagabeynaa insha Allah tacaala. wabillahi tawfiiq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.